بسم الله الرحمن الرحيم معاميشنا شرفت له كحرا شركة دالس ريال استيت ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قلبي فرن كسو دوادا قعمة فرن إيوه أديق هوفن أو إدن رالي قليا هدبا ولا ليال سيدا نوغا براتينبا وحا مانتا مركالة إدين سو قدبينينا دول إيب ولا ليال daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allah tacaala waxaa iib boos bannaan waana meesha hadda aan kaamirada ku hayno gurigaas sarta dhulka ka sukeeyo waa meeshaan bannaan markii soo dhawaada walaalayaal waxaan guda galayaa xogta dhulkan iibka oo dhameystiran ka bogasho wacan walaalayaal dhulkan iibka waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uu uga sii yaalaa degmada Yaaqshiid waxa uu uga sii yaalaa xaafadda loo yaqaano suuqa jaayga meesha hadda gacanta ku fiiqeeno waa suuqa jaayga meesha suuqa weliba dhankan kalena waxaa ka xigto warshada Shaakir aad wada garanaysaan laamiga hadda aad joogno waa laamiga Daar es Salaam aada marka soo dhawaada dhulka waa kana waa u jeedaan meel dhisan oo guri waaweyn ay ka dhisan yihiin ayuu booska ku yaalaa oo xaafad aad u camiran magaalada meelaha loogu jecel yahay walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka cabirka dhulkan iibka waa 20 lagu dhuftay 15 ama finti barkuundisho waa sida dadka qaar ay u yaqaanaan wijiga hore oo hadda meesha laamiga ka saaran yahay waxa uu ka naqanayaa 15 mitir dhirirkana waxa uu yahay 20 mitir marka waa cabir aad u weyn cabirada ugu fiican runtii aniga cabirada ugu jecelahay dhulkan haddii aad gadatid waxa ka dhigi kartaa laba qayb waxa uu ku naqanayaa laba filo kale haddii kale waxaa ka dhigi kartaa hal filo oo aad u weyn amaba guri dabaq intaasoo apartment ama intaasoo qaybood ka kooban marka xagga cabirka waa cabir aad u fiican cabir weyn haddii aan ka hadlo walaalayaal jeedkiisa sida u jeedaanba horta waxa uu saaran yahay laamiga waxa uu ka yahay Brima Boss waa boos laamiga saaran sidoo kale waa laba jidle oo jidka laamigana waa uu saaran yahay jid kale oo dhinacahana waa uu saaran yahay booska kan ma aha waa midkan kale ku dhagan oo hadda meesha farta ku fiiqeen waxa uu ku dhagan yahay gurigan ganjeelka madow leh nasifaan aragtaan ayaa rajeynayaa marka jidkiisa jidna waa laamiga dhinaca kale meesha hadda waa meesha uu guriga ugu dhagan yahay dhinacan kalena waxaa ku jirto wado marka waa laba jidle waxaanu u jeesanayaa galbeed ujeed dhanka galbeed iyo sidoo kale wuxuu u jeesanayaa koonfur degmo ahaanna waa degmada Yaaqshiid walaalayaal booskan maadaama uu laba jidle yahay waxaa laga dhigi karaa laba qayb oo qaybtiba ama laba nus qaybtiba ay naqanayso 10 lagu dhuftay 15 dhinaca 20 ku yahay loo kala jarayaa markaas 10 iyo 10 ayuu ka naqanayaa wajigana sida loo daynayaa taasoo ka dhigayso in nuskiba uu noqdo 10 lagu dhufto 15
oo nuskiba uu markaasi boos camal noqdo guri gooni ah laga dhiso. nuskaasoo kale xataa waxaa laga dhigi karaa ilaa 4 qol 3 qol hadaarta waa ka dhigi kartaa. marka dhankaas haddii la fiiriyana fursad ayuu ka yahay boos kasta oo finti barkundisha ah haddii uu laba jid leeyahay habkaas ayaa loo kala goy karaa. walaalayaal sidoo kale haddii aan ka hadlo dhanka dukumentiga, dhulkan dukumentigiisa waa nadiif, waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre. waxaa la cabiray xilligii dowladdii dhexe. dukumentigiisa waa nadiif, waa rasiid iyo sabarloog original ah, sabarloog maca rasiid iskorsaar ah dhammaystiran. warqadihiisa kale oo dhan iyo ay warqad oo sharciga u baahan yahay dhulkan waa u dhan tahay, waa uu haystaa. marka xagga dukumentiga waa heer sare, waa dukumentiyada nooca ugu fiican. marka walaalayaal ka faa'iideysta. haddii aan ka hadlo ugu dambeyntii dhanka qiimaha, waxaa lagu rabaa booskaani qiimo dhan $75,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal ah. runtii waa qiimo macquul ah, maxaa yeelay waa boos laami saaran birimo ka ah laamiga, haddana usii dheer tahay inuu laba jidlo yahay, cabirkiisa uu weyn yahay, ay haddana usii dheer tahay dukumentigiisa oo nadiif ah, Maxamed Siyaad Barre ah. xaafadda uu ku yaalana waad aragtaan, waa xaafad istiraatiiji ah. xaafaddan waxay u dhexeysaa laamiga warshadaha iyo sidoo kale Daarusalaam. Daarusalaam waa garanaysaan, waa xaafad camiran oo bulsho badan ay degan tahay. xaafad cusub mar aan dheereen kobacday, waa sanadadii u dambeeyay. laamigana Daarusalaam ayuu tagaa, sidoo kale wadada warshadahana wuu tagaa. marka meeshaan waa meel mustaqbal fiican leh. haddii aan ka hadlo waxyaabaha dhulkan ka anfici karo, dhulkan walaal wuxuu ka anfici karaa inaad ganacsi ka dhigatid, oo masalan goobo ganacsi laga dhigo, maadaama suuqana uu dhow yahay, waddo oo muhiim ah halbowlaha aad loo isticmaalana uu ku yaallo. sidoo kale dhulkan wuxuu ka anfici karaa maalgashi ahaan, inaad inta gadatid lacagtii aad ka bixisa ay wax kugu kordhaan. dhankaasna fursad ayuu ka yahay. xitaa haddii loo baahdo deegaan waa laga dhigi karaa, inkastoo guri laamiga saaran uu deegaan zaid ku ahayn oo ganacsi iyo howlo kale uu kusii fiican yahay. waxaa kaloo ka dhigi kartaa inaad dhul ahaan inta gadatid aad dhistid, kadibna lagaa sii kireysto oo meel wareegsan laga dhigo garaash ama warshad ama howlo kale lagu sameysto. dhankaasna waa fursad. marka soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta. haddii aan mar kale si kooban xogta dhulkan idinkugu soo celiyo, waxa uu ku yaalaa xaafadda Israac, xaafadda suuqa Jayga, waa iska soonaha Israac. laamiga ayuu saaran yahay dhanka Yaaqshiid, magaalada Muqdisho. booska cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 15. waa laba jidle galbeed iyo koonfur u jeesanaya. dukumentigiisa waa nadiif, waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre. warqadaha dhan ay u dhan yihiin. qiimaha lagu rabo waa $75,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal. walaalayaal, shirkadda Lis Real Estate waxay diyaar u tahay inay booskan idin soo tusido. haddii aad ku qanacdaanna nootayo alle nootayada aad jeceshihiin ay idinkaga wareejiso insha allahu tacaala. marka soo dhawaada, ka faa'iideysta. shirkadda Lis Real Estate waxay mar walba diyaar u tahay inay idin soo gudbiso jaaniska ah meel fiican ku yaala
دوكيومنتيغooda nadiif yahay mar walba documentيga ayaa muhiimada koowaad leh lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriir haddii aad u leedahay oo iska gadaysid waa laga caawinaa haddii aad u baahan tahay magaalada Muqdisho areeraheeda xitaa gobolada qaar soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ugu dambeyn waa ku mahadsantihiin walaalayaal daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Dallas Real Estate waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambalaalkan aad furataan idinkoo mahadsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.